isagoo aad u daayar ayuu tegay qurbaha waxaana uu wakhtigiisii ugu badnaa ku qaatay dalka dibaddiisa balse sida muuqata waa aftahan afkiisa ku jilay aflaan badan gaar ahaanna filimka caan baxay ee xaaska xabaalqodaha habi nolol qurux badan oo macaan levelkay doonta ahaato oo kuwa sagxadda ugu hooseeya magarasa waxay aan bariiska helayna ma yeelan karaan nolol habiya oo qurux badan oo jacayl ku leeyahay yahay oo wanaagsan jacaylku qoys walba ma dhex ooli karaa weey horta fariinta koowaad ee uu xambaarsan yahay ama taajir ha ahaado ama faqiir ha ahaado qodob Soomaali qoyska Soomaaliyeed ee aan dhaqankoodii ka tagaynay jacayl wanaagsan ee maxalliga wax weeye ka kooban aabaha iyo hooyada iyo ilmaha yar ya xilli ayaa la ogaan karaa duruufta iyo dhibaatada ee qolobo magaranaysay wax weeye waqti bay la kulantahay jacaylkaas ka hor intii aanu ku biirin bahda aflaanta waxa uu ka mid ahaa bahda warbaahinta Khalid markaas halkaas website halgan news la baan sameeyay markaa oo taariikhda sanamtana ururiya ya oo taariikhdu waxay ahayd markaas ilaa hadda uu jira ilaa hadda kaydkiisa waanu haynaa ma jiro website laakiin kaydkiisa waanu haynaayo markaas yani dhab ahaantii markaas ka tagay waliba ka tagaya dadka korneelada caanka ah ee la yaqaanay raadinaya dhalinyartii yaryaraada soo gashay dalka raadinaya magaranaysay waxay dumarkii la xooxda magaranaysay u sameeyay raadinaya reerkii afartu kaga dhinteen ma fahanteen noloshiisu waxay ka bilaabmataa bartamaha magaalada Hargeysa gaar ahaan agagaarka sinimo Hargeysa hase ahaatee marka aad la sheekaysanayso waxa kuu muuqanaysa sida aanu isu bedelin afkiisii hooyo maadaama uu muddo dheer joogay qurbaha isla markaana uu tegay isagoo aad u daayar waliba marka aanu qoxoontimaan ka tagay qoxoontiguna waxa buul halka derkad halkan ka dhisan buul halkan ka dhisan adigoo ordayo ciidina ku celin xaafadda reer hebelo aad toos u galayso xaafadiina la galayo idinka wada yaacaya marka waxaan galay haddana imaarado wada dhaadheer oo wada qufulan oo dadkii lahaa markay shaqo tagaan ciidina guriga dhexdiisa cidda joogtay cidda kale aan bando wax la oran karo miyaad aragtay imaarad magaranaysay wax 45 guri ay ku yaalaan oo haddaad banaanka u soo baxdo maanta lay fadhido aad haddii laga yaabo malaha 2 saacadood inaad aragto qof sii galaya ummadana waxay igu kaliftay mararka qaarkood anagoo iska ciyaaraya inaan cimaaradaha dhan soo galo ma fahmayo noqoto jelaska meel waa la iga furaa qof cadun baa iga furaa isma fahmin haddaba la soco dhowaan waraysigan oo dhinacyo badan taabanaya oo aanu la yeelanay jilaaga filimka caanka ee xaaska xafaariga Cumar Cabdi Nuux